بسم الله الرحمن الرحيم قلبت waxaan doonayaa oo aan halkan shirka jiraayad ugu qabtay dhowr arrimood inaan ka hadlo markii hore laba maas baan afka ku sitay mid wuxuu ka rabadaanta iyo dambiga in aan iskaga ilaalino midna wuxuu ahaa kii coronavirus-ka labadiiba galabta waan tuur wuxuu dhaabwaankii dheeraad nin haysto aqalkiisu dhalayahay nabad iyo ku dhaqankeed hadduu tuuriyo dhaafsado ma kiisan dhagaxu karin maandha dhaabka xaabsado haddii dhoobi farabaxay dhooqeeyay taladii amba maan hangala dhigo haddii awr dhufaanihi isku saydhay dhibidii dhirta maan jijabiyo amba dhoosha ka cartamo dhowaan halkan waxaa ka hadlay odayaal shir saxaafadeed qabtay odayaashaasi dambay ka hadleen iyo nabadgelyo marka koowaad odayaasha waan ayidsanahay waanan la qabaa hadaladii ay ku hadleen waxa dhacday nasiib daro odayaasha qaarna in la fiirsado qaarna la xidhxidho waxaan aad u cambaaraynayaa xariga oday jaamac faarax muuse iyo oday maxamuud Saleban Muuse Maxamuud Shukri aad baan u cambaaraynaya waan ka xumaa waxa dawladda caado u noqotay qofkii kelmad yiraahaba in la lahaado oo la dhiga xabsiga waxaad arkaysaa hay'adihii dawladda kuwii dawladda dhexe maayaradii oo ama ilmo yar oo meel ka hadlay gambar ugu fadhiya oo la tirsanaya ama in yaro Facebook wax ku qoray xidhaya waxa dalka jooga kuwa Soomaali weyn u gacan haadinaya waxa dalka jooga kuwa madaxweynaha si shakhsiya u caaya waxa dalka jooga kuwa jabhadaha taageero u fidiya lama xidho maxay galabsadeen nimanka arinta nabadgelyo ka hadlay ee dawladana baaqa u diray ee la xidhxidhaya waxaan xusuustaa Cabdullaahi Abakar oo wasiirka jidadka ah waqti la xidhay oo madaxweyne Muuse Biixi musharax ahaa Cabdullaahi waxa lagu qabtay 10 qori in ka badan Muuse isaga oo aad u cadhaysan buu ka hadlay oo sharci darro ku tilmaamay haddaba madaxweyne adigu waxaad ka hadlaysay wasiir hub lagu qabtay baad ka hadlaysay oo aad u doodaysay annagu kuwa aan waxba galabsan baan u doodayna waa sharci darro xarigoodu wasiirada qaranku way ismeeyeen laakiin mid baa la xejiyaa ka la xejiyo waxaan doonayaa in aan la dardaarno mudane wasiir xasan maxamed cali wasiir waxaad wasiir u tahay qaranka oo dhan waxaad kaloo wasiir u tahay dadka degan og ilaa shalcaw haddana waxaad moodaa saddex inan oo madmadow ayaa kugu filaaday yay kugu filaan inamada madmadow talada madow ee tuurta leh ee ay ku siinayaan والله waad ku lumaysaa iyagana qandaraasyadii loogu xidhay warba hadii qandaraasyo la siinayo may tala wacan wasiirka siiyaan xasan maxma in mid buu leeyahay talooyinkuna qaadan kuwa madmadowga tuur tala buu ka qaataa wasiir ummad ballaaran bad wasiiruta saddexda inana madmadow talada ha ka qaadane ka qaado waxa weeye dadweynaha faraha badan waxaan kale oo dawladda u sheegaya oo aan aad ula yaabay halka beela isku dilay nabad baan ugu baaqaynaa balse waxa nasiib darro ah sultaankii nabadda loo daba fadhiyay ee gacan ku dhiglaha laga rabay ee reerkiisa laga rabay oo loo daba maray aqalkii kontraaga lagu siiyay dawladda Riyaal ku siisay
waxaan la yaabaa caqliyadda garan weyday waar kaba qaado oo xilliga nabadda xalkeeda lagu jiro ha ku beegine daba mariya horta sharci darra looga qaado laakiin bal caqliga garan waayay waqtigan uu nabadgeliyada iyo xalka iyo markaas waliba isagii la fiirsanay artaan aad baan ugu xunay wana cambareynay والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته